أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري عقد من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin ba meel loo kala haraayo ma lahan soo dhawaada. okay hal maraan sheer garaysta kadibna inta kale idinkaa ku qoran. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabay soo dhawaada. sheekada ma yaro long time iyo dibadba inaan isku soo gurmano reer digli mirif. wallaahi aniga life waxaan is dhahay maasha allah tabaarak digli mirif dhaqdhaq waayo hadda wax ka maqan ma lahan dhahay, laakiin sheeka hadday soo bilaabatay marka waxaa loo baahan yahay. waxaan rabaa inta 3 fariin war badan ma fiicno. waxaa la yiri meel hool u baahan hadal wax ma ka taraayo. 3 waxaan rabaa inaan anigu ku dardaarmo aan rabaa. 3daas waxaan ku dardaarmayo waxay tahay: kow, ciidankeena digil iyo mirif oo furimaha dagaalada oo aana loo dirsanin oo gobolada la geeyay carab adag waxaan ku leeyahay lafta gareen madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ciidamadaas inaad soo ceshatid. duulaana lagugu soo qaaday. duulaanka ma ahan baraabe. digil iyo mirif dhanaa duulaan lagu soo qaaday, kaliya ma aha baraabe. digil iyo mirif dhan ayaa duulaan lagu soo qaaday. daafeed dagaalaa ka socdo, baraawo dagaalaa ka socdo, ceel bardo waa ku bilaabeen. hadda xaladadaa soo galay waxaa la dhahay meel kaloo badanna dagaalka wuu ka furmi doonaa, waa arki doonaa. marka maxaan rabaa aniga inaan inta ka sheego oo aan rabaa inaan carab adag ku dhaho ciidamadeenna xildhibaanada maasha allah tabaarak si fiican ay u hadleen, laakiin waxaan rabaa inta inaan fariin uga diro doctor cali fiqi oo miniq iyo facebooka wixii lagu sheegay anaga ma sheegayno. facebooka le wax lagu dhisooyaaba. facebooka hawsha laga wadaa. facebooka ayaa dowlad lagu dhisay. facebooka ayaa xasan sheekh lagu soo saaray. facebooka ayaa farmaajo lagu riday. facebooka wax walba ayuu sameeyaa. soo facebooka haddaadan ka sheegin hadalkaaga la soo qaado tiktok iyo facebooka la keenaa. abay ya abay iyo walaalayaalow na dhaafi iyo waa heshiinaynaa. heshiis ma la rabo. waxaan rabaa marka milatariga daraawiishta oo gobolada joogaan inay soo galaan, inay soo xaroodaan, inay imaadaan, inay dagaalka ka qayb galaan. waayo duulaankan ma aha mid baraaba keliya ah. duulaankan waa digil iyo mirifoo dhan meel kastoo ay joogaan aa lagu soo duulay. waxaan rabaa marka gabdhaheennii digil iyo mirif iyo inta la jirto oo dagaalkan diyaaru ah inaan nimankeenna aan garab istaagno. nimankeenna inaan garab istaagno oon aan caawino oo aan maxay ahatoolo wax alla waxay u baahan yihiin. hadday noqon lahayd qarash, hadday noqon lahayd inta la joogto hadday noqon lahayd badar, hadday inta isqabsano oo aan wiilasheenna caawino. waxaan kaloo rabaa gabdhaha maaragtay gabdhaha raxweyn waxaan rabaa oo askarta milatariga walbo digli mirif waxaan rabaa inaysan ninka aysan la seexanin ayadoonan digli mirif la xeraynin ay isku diidaan. mii maqlaysaa inkastoo inta badan la yiri dadkaas kalay qabaan nasiibkeenaan qabnaa. baraawe feed afgooye war ayaga hadda waxayba dhahooyaanba koobka wuxuu yaallaa baraawuu koob ka yaallaa. haddaba baraaba banooni noqday oo geem noqday waa laysla joogaa. ya gruubka qofkii isoo wacaya ha isoo waca. hala gabdhaha gruub isku xiray waa isku soo xirmeen gabdhihii markii dagaalkii daafeedka dhacay hala sameeyo. waxaa inta fariin ugu dirayaa digil, kulli digil oo dhan gaar ahaan reer daafeed. waxaan halkan ugu dirayaa inay gacmaha isqabsadaan 5 caleemood. hadda reebada hoos waa ka baxday. sheekada waxa waaye annaga kanaa nahay iyo annaga waxaan nahay iyo qabiilkaanaa nahay way dhammaatay. waa inaa iska nadiifisaan idinkoo gacmaha is haysto. 5 caleemood gaal jecel hoosaa laga soo riixooyo. yaa ka soo riixooyo? waxaa ka soo riixooyo dadkan hadda qashinka aan wax walwalaaqooyo aa ka soo riixooyo. kulli baraha bulshada imaadeen waa aragtay. ya kulli baraha bulshada midaa soo galaa ujeedo lafta gareen afka ku labaayo, laakiin
lafta gareen iyo shee aadamadooba waa soo jeesteen sheekada sidii hore ma ahan digili mirif waa isbedeleen wallaahi dhul kor iyo shanta qaaradoodba diyaaraa laga wada yahay in kulli la isku imaado gacmaha inta la isqabsado dagaalka hala galo wiilasheena biliis am biliis soo baxa militariga soo baxa fadhiidii ma yaalo lafta gareenow hal warqadoo u qortid aa ku filan dowlad guuraysaa tahay wiilashaas waa la wataa waa laga haayaa ya waxyaalo badanaa laga hayaa cajalaa laga duubay haddousan hal shay samaynin ya asaa la dilaa war gabar yay naga harin gabdhaha mii maqloosiin isku imaada mii maqloosiin guruubaan sameeyey takistiga daas kuwa joog erkiisa lama rabo af erkiisa maalin kasta waa la soo gali karaa waa la hadli karaa laakiin waxaa la rabaa action dadkaaneeti waa tashteen waxaa la yidhi nin bistoolo tuuray iyo nin cabaystayaa la yidhi isku action waayo hadalladaas ay dhahayaan runay ka tahay ha u malaynina wallahi inay iska dhahooyaan waxaan apologize waxaan ku siinayaa intaasoo sanaan ku haystay dhib ma laha tanaa noo dambaysay inaan miraha hadda guranaa noo dambaysay waayo naftarkiisa markii qofka bini aadanka la haysto oo wax lagu haysto oo aadan aqoon u lahayn markaa baratiday ka fiican tahay waayo anoonan aqoonin haddaan markaas aan taageeri lahaa waxaa laga yaabaa saan hadda aan tiktok inaan laga niikiyo waa laga fiican yahay gabdhaha digili mirifaan ka hadlooyaa kuwa gobollada joogaan ka hadlooyaa dhalinyaradaas militariga waa inaa caanaha ka daba qaadiin waa inaad raashinka ka daba qaadiin waa inaad bariiska annaga dibaddaan joognaa guruubaan noqonaynaa economica qasacaan samaynaynaa waxay dhalinyaradaas markay xoreynayaan ya ay xoreynayaan digil ma lagu soo duulin yaa ma lagu soo duulin baraabe waxaa lagu soo duulay digil iyo mirif haddaa ka seexatiin idinka idiin taallaa heshiis ma rabna annaka cabdicasiisna waa heshiis ma rabna dagaalka suu u bilowday yaan loo kala harin ha layla soo xiriiro gabdhaha biliis kuwa dalka joogana dhalinyaradaas ha laga daba qaado reer walla weyn biliis am biliis ma la idiin jeedo hadda aa u jeediin dagaalay ku jiraan ayagiyaa kala qoleemood koor aa looga imaaday 3 tuulo aa laga soo safray dagaal kale in la jiciyo dadkan lacagta qarashka la soo siiyey qarash dadkeena qarash ku kala bixinayaan waryaada calooshiina kiyaaba ku xirta ayo calooshiina uujiya biliis am biliis waa baahanahay bakti looma cuno idinkaa dhaqaale haysto idinkaa dhulku fadhiyo dhulkaan hadda loo dagaalamooyo baasiinka ku jiro idinkaa iskale kiinaa la rabaa inaa inta la gato idinka la idinku gumaado idinka kiintow inaa la idinka dhigo laga soo qaado gacmaha ha laysqabsado waxaa u soo gala inaa idin guubaabiyo waa ku soo celinayaa iga soo waca waayo xalayaan gruub sameeyey gruubkaasaa idinku darayaa dhalinyaradeena aan garab istaagno gabdhaha raxweyn oo nimanka raxweyn qabo xataa hadday shicib yihiin yaa lala seexayn ilaa ay ma jiifan kartiin soo xoreeya dheh isku diida kuwii hawiyaha gaaladii waddankii joogin ibn hadduusan xamar joogin ama baydhabo joogin ama baraaba joogin uu dagaalami karin that what I'm meaning macnaha meaningkayga taas waay biliis am biliis wallaahi waqti maha lagu kala baxaa tan ma lagu kala tagaayay dheheen lafta gareenna wuxuu taagan yahay madaxweynaha haddaa ciidankan qaadayna waa tuu wariyaha idiin sheegay yahay adiga calaa iyo xaal waa la isku dhagan yahay ya aadamadooban waxaan leeyahay guddoomiyahayna guulaan leeyahay waayo xalay maasha allah gabdha ila soo hadleen ii sheegeen waxay dhaheen aadamadow hataa xabadda adiga lagu soo wado asaa isku dhigayaa layidhi xataa xabadda adi lagu soo wado asaa isku dhigaayo maasha allah sidii hore ma aha aada uu adag yahay ii gargaraaca shaashadda war aniga tiktok ma qabo ilaahay maaragta u baanibo tiktok ay ku jiraan gargaraaca ii libaax ii soo dir kaas tuugsi maahino tiktok ay ku wada jiraan ani daraadna live aan soo galay intaanan hadda aan iska daynin waa iri waxaa idin kuwa waa mashquulsan yihiin tiktok ay ku jiraan intay tiktok ku jiraan aan ka faa'iidaysano kayga hadda soo baxay nin waxaa u jeeda qaylinayo dhahay kale hooyada walaasha ilmahaaga aadooyinka la rabaa in la dhibaato geliyo soo baxa madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen biliis am biliis waraaq u qor dhalinyaradaas ha ka soo firaaqoobaan ha ka soo tagaan xildhibaanadayna xitaa handadaayeen
xildhibaanadeenay handadaayeen waa u jeedeen handadaad hindhay ka galaayeen ya ma aha inuu saas yiraahdo sidaa inuu yiraahdo ma aheen xildhibaana hindhaha laga galaayay wax walba facebooka ugu jeedeen macallinaa ka tihiin wax la idiin sheegaayo male wax walba waa ogtihiin laakiin ani inta waxaan usoo galay gabdhaha digli mirif meel kasto ay joogaan adduun weynaha ila soo xiriira dhalinyarada waxay u baahan yihiin garabayshin yaana lagu hadlaynin madaxweyne cabdicasiis ilaa dagaalkaas uu ka dhammaanayo waxay cuni lahaayeen i qoryahoodaha naag walba ku qoran tahay aniga labaan qaatay laba saddexaan qaadanaa ilaa dagaalka uu ka dhammaado waxay cuni lahaayeen iyo waxay ku dagaalami lahaayeen diyaar u ah idinkana saasaa idinka rabaa idinkana saasaa idinka rabaa ilaa laga cabsanayo may u maleeyaan kuwaan war kuwaan lagama baqaayo laakiin waa loo turaayo walaala islanahay waa isla jiifanaa been waay doole camal waa ku afuufayaan waana ku qaniinayaan waa ka nasta facebook wallaahi waxaan lahay digli mirif waa israacday systemku waa dhisan yahay wax naga maqan male xoogaa shucaacale daafeed ka jirtay ayagana waxaan dhahay maba daahayaanba ma u daahayaanba ayagaaba kudoomiye aadamadow waan naga jooji marna waan sidii hawsha loo bilaabay ha lagu dhammaystiro wallaahi haddaa waan gashiin haddana hoosay kasoo dusaayaan hadhoway haddana hoos kasoo dusaayaan istafiidaysiin marka ii sheeg maxaa ka istafiidaysiin dadkan walaal ma galaan waa ku anfuufaan waa ku goosanayaan waa la ogyaa dhul ninkii iskala u heraa laakiin dhulka waxaa la rabaa qori inaa lagu soo fujiyo dadkan dhul aysa leen ayaga dhanba waxaa la dhahaa gal nusaa la dhahaa gobol iyo nusay leeyihin dadkan qaylinooyo waxaa qalad way isbedelaan idinkana midig ka dhow bidac ka dhow sameeya iyagaba saasay samaynooyaan shaarka maayna wax la idinku gumaadooyo idinkoo shaatiga wadatiin bidix ka dhow midig ka dhow way ugu talagaleen wax ciidan la dhaho ma jiro wax qaran la dhaho waagoo farmaajo jooga ugu dambeysay qaran wax la dhaho farmaajo waagoo wish al dhahoya idinkaa laidin dhahoya kahor ku daadin waxaa idin soo sheekadu hadday bilow noo tahay insha allah ani galbiyaan shaqeeyaa subixi saacadan camal mar kasta insha allah waa kusoo boodaan biidni illahi laakiin waryaheenaba ku filanba maasha allah tabaarak ilaahay ha xafido ilaahay ha xafido wariyo aadan ilaahay ha xafido macalinka lugeeyo ilaahay ha xafido wallaahi ma marka qaarkood meeshiisaan galaa ani sheegaayo konkooga qori waaye kan labaad waaye nimaan hee afkaaga iskiiga celin nimaan shanta iskiiga celin ma aano nimaan afkaaga iskiiga celin wallahi sharci ma kaa reebaayo marka walaalayaalow isku tiirsanaada reer daafeed mar labaada waa idiin diraayaa idiinma jeedno ma idin arkoono isgumaadka iyo isleexleexinta iska daaya gaal jecel hoosaa laga soo shubayo keliya afarta kale caleemood enjooya sameeya inkastoo xalay ay isoo waceen dheheen maama waa gelaynaa kheyr allaha idin siiyo gacmaha isqabsada jugtaa kasoo bilowdiin ilaa baraaba afgooy xoraysay u baahan tahay ilaa ceelasha waxay bisheego iyaga baraabay sheegeen ilaa iyo ceelashaa rabnaa anag ilaa iyo ceelash la sii socda ilaa iyo degmada hodan oo aabbahay guddoomiye ka ahaa